kalfadhigii toddobaad ee Golaha Deganka Degmada Erigavo weli si rasmi ah uga socda howlka shirarka xarunta maamulka dawladda hoose ee magaalada Erigavo kalfadhigan oo ay ka soo xaadireen 16 xildhibaan ayaa waxa nuxurka ujeedada kalfadhigan ay kaga hadlayeen arrimo la xiriira dhinaca dhulka gaar ahaan dhul seereedka degmada Erigavo iyo cashuuraha waxaana ugu horeynba kalfadhigan ka hadlay maayirka degmada Erigavo Ismaaciil Xaaji Nuur kalfadhigii toddobaad ee Golaha Deganka Degmada Erigavo waxa fadhiya 16 xildhibaan wuxuuna bilowday shalayto 9 saacadood welina wuu noo socdaa waxaan rajaynaynaa hadday suuro gasho inuu noo gabagabo berrito marka aan soo qaato qodobada shaacinta waxaa golu isla gartay oo u footeeyey oo go'aan ku gaadhay in la qaybiyo guddi farsamo oo hogaaminayo Golaha Deganku oo hogaaminayo waaxda dhulka gudoomiyaheeda iyo guddidiisu oo ay ka keenaan magaalada gudaheeda iyagoo hore ugu jiray oo qayb dhameeyay qaybtii labaadna inay galaan inayna keenaan dhulka wax ka qabadka degdega u baahan ee wadooyinka dhulka khaladka lagu dhisay dhulka foolxumadu ka jirto dhammaantoodba iyadoo naqshadaysan oo cilmiyeysan in la soo dhamaystiro guddi 7 ayaa golu isla gaadhay waa Axmed Ali Biyo Erigavo.